magacayga Zahra Cabdikariim Ibraahim waxaa ku dhashay ku warbaaray magaalada Muqdisho waxaa uu dugsiga sare uga baxay Axmed Gurey jaamacaddan waxaan ku soo qaatay Yemen kulliyadda Science and Technology waxaan soo bartay qaybta programming-ka ana horta qof macallin ahay macallinimada markaan noqonayeen waxaa u noqday waxay ahayd in ay dhalinyarada arkaan inay gabar iyo wiil wax dhigi karaan gaar ahaan teknolojiyada haddana waxaan rabaa inaan fahansiiyo dadka inay gabdhaha technology ay noqon karaan oo dad teknolojiyadeed ay noqon karaan teknolojiyada marka laga hadlaa horta gabdhaha dhibaato badan ay iska qabaan caalamka oo dhan si gaar ah Soomaalidana teknolojiyada wax ragga ay u haystaan in ayaga bas ay ka shaqeeyaan waay sidaas darteed yaa waxaan u sameeyay barnaamijka Bilan Codes dhamaadkii sanadkan in gabdho badan oo teknolojiyada ganacsi teknolojiyada inay soo bataan si ay dadka u dareemaan una fahmaan gabdhaha iyo ragga inay si siman ay ku wada wax baran karaan kuna shaqeysan karaan teknolojiyadana aysan ahayn cid si gooni ah ay koox gooni ugu xiran laakiin hadda gabdhaha iga dambeeyo oo jiilasha aan rabo inaan soo saaro inay waxaan rabaa mustaqbal teknolojiyo oo dhan walba ah inay ku biiraan ay noqdaan dad ganacsate ah ka shaqeysan karo sida loo sameeyo software-ada ka shaqeysan karo sida loo sameeyo mobile apps-ka noqon karo graphic designers arintaas darteed waayaba waxa Bilan Codes ay u taagan tahay si xirfadley fara badan oo gabdhaha ay u soo baxaan